وبرنامجكي أدود السوق السنة كفتك سبورتس قربتنا برنامجك وحاسي وذا جرا إنك هو دادينا يا لول شالو يعني عبد القادر بوصة كبر شوان xulka kubadda cagta Mareykanka oo isticmaalaya diyaaradaha Sports ee kaligood islaada oo ay wehelinayaan line-up kooban oo dhulka ayaana kulan xasaasi ah isbuucan Shabeellaha hoose kula ciyaara kooxda aan 93 minute quusan ee shabaab ciyaartan oo soo gashay saqbarka habeenimo ee waqtiga afgooya ayaana u muuqata mid kadisa iyadoo Mareykanku doonayo inuu guul ka gaaro ciyaartan maadaama kulankan muhiimad gaar ah u leeyahay awoodiisa Sports ee bariga Afrika ciyaartan oo weerar iyo weerar celiseed ayaana shan xidig oo ka tirsan shabaabku qaateen calaamad hurdiga badalka oo ku yaraa kooxda ayaana garoonka lagu sii hayay ilaa ay qaataan calaamada casaanka oo gabi ahaanba laga saaray kulankan taas oo meesha ka saaraysa inay si ciyaari karaan horyaalka dunida halka xidig ka tirsan xulka Mareykanka qaybtii dambe ciyaarta isna uu qaatay calaamada hurdiga walow garoonka laga saaro taas oo xidigan u saamaxaysa inuu si ciyaari karo kulamada lugta labaad ee hadii ay u yeeraan xulkan aan aaminin macallimiinta dugsiyada ee Mareykanka kooxda shabaab ayaana record fiican ku haysata kulamada Shabeellaha hoose iyadoo badisay 12 kulan 20 kulan ay u soo martiyeen xulalka USA iyo Faransiiska waan record ka badan kuwa kale goldaliyaha reer Somaliland Axmed Silaayo ayaa ka soo muuqday TV-yada Sports isagoo tirabuunka la fadhiyay weeraryahanada maamul goboleedyada xulka Soomaaliya xilli ay daawanayeen kula lagu maamuusay tababaraha isku magacaabay xulka Djibouti Ismaaciil Cumar Geele xidigaha kooxaha Puntland iyo Jubaland Cabdiwali Gaas iyo Axmed Madoobe ayaana tirabuunka ku weelinaya laacibkan Silaayo kaasoo aad uga careysnaa inuu kursiga kaadku ka galo kulankan maadaama uu soo qaaday goolelinta FA Kaabaha Somaliland inkastoo booskiisa la ciyaarsiiyay kabtanka Soomaaliya Xasan Sheekh kaasoo u diiwaan gashan xiriirka kubadda cagta ee FIFA sidoo kale xidiga Silaayo ayaa ku fashilmay inuu salaan sharafeed ka gudoomo kabtanka ciidanka militariga xulka Djibouti taasoo dad badan ay soo xasuusay xidigaha Efra iyo Suarez oo salaantiis la dhaafay garoonka Old Trafford fadeexooyin horle ayaa hareeyay gudoonka guud ee xiriirka kubadda cagta Soomaaliya kuwaas oo hanti wadaag ku ah isla kooxihii FIFA u idmatay inay maamulaan kooxda dekadaha oo ku jirta kaalinta labaad ee kala sareynta horyaalka ayaa mininkeeda baaqi ku sii ahaan doonta mar kale halka kooxda Jenya oo kaalinta saddexaad ka gashay tartankana lagu amaalmariyay ka qaybgalka tartanka Nile Cup ee Suudaan lagu martigeli doono sanadan maadaama saamiga ugu badan kooxdaasi uu leeyahay madaxa xiriirka kubadda cagta Soomaaliya Cabdiqani Saciid Carab horyaalkan Muqdisho oo laga ciyaaro ayaana fursad loo siin xidigaha kale ee matala gobolada dalka iyadoo dalkan subax walba loo dareero jaamacadda uu ku yaryahay kobaca Sportska maadaama ay si jirin cid si qurxoon isugu baasbaasanaysa kubadaha cadaaladda ciidan ka socda dawladda Mareykanka ayaana laga yaabaa in si toos ah u galaan xafiiska madaxa xiriirka kubadda cagta Soomaaliya oo hadii loo baahdana xabsi Sports u taxaabi kara xidigii hore ee kooxaha maxaakiinta iyo dawladda Shariif Sheekh Axmed ayaa haatan tababar iyo jimicsi dheeraad la qaadanaya xidigaha xulka Sacuudi Carabiya laacibkan kursiga kaadka ka galay qaranka ayaana dagaal adag ugu jira sidii uu soo ceshan lahaa booskiisii joogtada ee xulka oo haatan line-up uu ka yahay xidiga lama filaanka uga soo baxay Serbida ee Xasan Sheekh Maxamuud kaasoo haatan kabtan waqtigiisa sii idlaanayo shirkadda Fly Emirates oo hore heshiis u wada galeen xidigan ayaana la fahamsiyay inay taageero dhaqaale ku caawin doonto laacibkan ay ku yartahay raacashada kubadaha kooxda Puntland qobarada saadaalisa natiijooyinka ciyaaraha ayaa saadaalinaya in laacibka 2015 bartay Ingiriiska ugu yaraan ka mid noqon doono saddexda xidig ay isugu soo harta bilada Ballon d'Or dila President walow tartan adag uu kula kulmi doono xidiga Xasan Sheekh kaasoo isna dhankiisa haysta taageerada xayeysiinta shirkadda Qatar Airways لاعبك محمد آلتا ayaa ka fikiraya inuu soo gabagabeeyay qandaraaskii dheeraa uu kula jiray xidigta Hodan Cabdiraxmaan taas oo inta ka harsan xilli ciyaareedkan safar ugu maqnaan doonta horyaalada Afrika laacibkan kali ku noqday masraxa riyada ayaana lagu arkay suuqyada Minnesota isagoona gorgorinaya laacibad bedel wanaagsan u noqon karta xidigta Hodan Cabdiraxmaan taas oo maqnaashadeeda ka sokow heshiiskeedu ku eegay xagaaga ina soo aadan dhanka kale xidiga Ahmad Rasta ayaa bilaash looga heli karaa suuqa horta wixii ka dambeeyay 31 June laacibkan 5 bil aan soo xaadirin aalmiitada qoyskiisa ayaana u muuqda mid haatan laga kaaftoomay xidigtiisa ayaa haatan dhankeeda suuqa ugu jirta xidig daayar oo dabooli kara baahida nambarka 7 ee kooxda walow hadii xidigan dib ugu soo laabto kooxda lagu qasbi doono inuu la aalmiiteeyo xeero u gooniya kooxda caruurta
isaga tegay naadigiisii hore ee xidigaha geeska kadib muran xoogan oo soo kala dhexgalay tababaraha kooxdaasi ee Laab Saalax kaasoo horey naadiga uga ceeriyay dhowr laacib oo iska diiday amarkiisa. Wargeyska Burca Times ayaa qoraya in tababarahan weligiis kubadda taabanay Laab Saalax uusan ku qancin qaabkii xidigiisii hore ee BK uu maareeyay dhaqaalihii kaga soo xarooday bandhigii uu ka sameeyay horyaalada Yurub. Laacibka BK ayaa haatan samaystay kulan u qaas ah oo lagu maamuusayo 18 May kaasoo ka dhici doona mid ka mid ah garoomada magaalada Hargeysa. waqtiga kulanka uu soo gali doonana waxaad ka arki kartaa sawirka kaga muuqda shaashada. kulanka BK 18 May ayaana fariinsiday kooxda inteeda kale kuwaas oo aaminsanaa in laacibkan laga ceeriyay kooxda uu ku dhawaaqi doono in gabi ahaanba uu ka fariisanayo ciyaaraha heerka caalami. wargeysyada sportiska ee ka soo baxay Kenya ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay taageerayaasha mitidka ee ONLF kuwaas oo ishortaagay qaar ka tirsan laacibiinta xidigaha geeska oo bandhig ka sameeyay Rabe Stadium ku yaala magaalada Nairobi. taageerayaasha ONLF ayaana ka dalbaday xidigta da'da ay Yurubgeeya in hees sports u qaado kooxda ONLF maadaama hore heesta calanka Itoobiya ugu hor qiirootay tababar Cabdi Ilay laakiin kooxda xidigaha geeska ayaa iska diiday dalabkaas taasoo dhalisay in la baajiyo kulankii ay u soo safreen oo dhici lahaa 6 bishan aynu ku jirno. laacibka dhawaan ku soo biiray kooxda Mursal Muuse ayaana lagu waday in ciyaartan uu ku soo bilowdo maadaama looga fadhiyay inuu buuxiyo booskii uu kooxdaasi ka faaruujiyay xidigoodii hore ee BK. horey ayayna ahayd markii taageerayaal careesan oo ONLF leesarada indhaha iyo qarshooyin kaga soo gameen dhanka koornada xidigta baafiska u baahan haatan ay macdareen. laacibka hore uga fariistay ciyaaraha ee Cabdulaahi Boqol ayaa dib ugu soo laabtay garoomada fanka oo muddo uu keed ka ahaa. xidigan ugu safashada badan kulamada fanka marka loo eego xidigaha haatan ciyaaraha ayaana weligiis bilad sports ku mudan gool uu maskaxdiisa ka soo indisay isagoo mar waliba bandhigiisa la shirtaga maaliyadii uu xiran jiray. Allah u naxariistay diyashii xulkeena ee Tube. xidigan canshuurta ciyaaraha ka qaadi jiray gawaarida sportska isaga kala goosta garoomada Bakaaraha iyo kilometer 4 ayaana haatan bartiisa YouTube soo dhigay dhowr goos oo kulamadiisa amana jirto cid u soo daawasho tagtay ilaa iyo haatan taas oo si yareynaysa rajada xidigan baasaboorkiisa iibsaday ku aadaneed in looga yeero kulamada Superkaabaha arooska oo xidigan uu doonayay inuu isku soo muujiyo mar kale. kooxda odayaasha Soomaalida ayaa sanadan helay fursad ay kula ciyaari karaan daayirta gabdhaha Soomaaliyeed kuwaas oo xidigii ay wajihi lahaayeen away uga baxeen dalka. odayaashan half-time-ka neeftuura ayaana ku kalsoon inay dhameysan karaan 90 minute ee ciyaarta iyagoona gabdhaha ku soo jiita mushaar qaali ah oo ka badan kan haatan ay ka qaataan waalidkood. FIFA ayaana ka cabsi qabin xuquuqda ciyaartoyda gabdhaha ee wajahaya kooxda odayaasha maadaama gabdhuhu qatar sidaas weyn ku aheen kubadaha aan aad ku aariyeysnayn ee laadayaan odayaashan. daayirtan BBC-da lagu kor dhageysto ayaana aaminsan in weli ay haystaan fursado ay ugu sii ciyaari karaan kooxo cusub walow dalabkooda hoos u dhac weyn ku imaanayo maadaama kooxo taariikh leh ay ka soo ag ciyaareen. xidigta Yasmin Balog ayaa bishan jabisay iskoorka oo tareetada la iska dhaliyo xilli aan munaasab ahayn. laacibadan ayaana goolashan kaga sara maraysa waya araga qaaqan kaas oo lagu wado inuu ka fariisto ciyaaraha heerka caalami. xidigtan 90 minute ku dhagan aabaheed ayaana warbaahinta sportska uga xog waranta qaabkii waalidkeeda isugu baasbaasi jireen kulamada waajibaadka aqalka iyadoona soo bandhigaysa ball positionka ciyaarta haddii taageerayaasheedu ay ka codsadaan. xidigtan bedelka wanaagsan oo ahna Abuukar ayaana haatan si laba jibaartay kulamadeeda live-ka Facebook iyadoona halkii maalin soo muuqata 30 jeer xilliyadeeda suurida ama xitaa cunada waana in ka badan kulamada laacibka ugu safashada badan Facebook ee qaaqan. markana u diyaar garooba xubintani baafinta markana baafinta waxa la baafinayaa lajankii hore ee kooxdii Manifest iyo xulkii qaranka Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed markii cid ugu wardambeysana wuxuu kubad uu iskala jiiday ka sikiyay Jarnaal Ciidiid hadaba cid allaalay cidii aragtay xidigaasi ka niyay jabay horyaalka Soomaaliya waxaad ku qalqaalisaan in markale tartanka madaxtinimada dib ugu soo muuqdo haddii shaki kaga jirana raacashada Xuseen Ciidiidna waxaad u sheegi kartaa in garsoorayaal Amisom dhexdhexaadinayaan kulamada horyaalka dalka.
kabtankii naadiga Khaatumo State Cali Khaliif Galeer markii cid ugu war dambeysana waxa lagala wareegay milkiyada masraxii riyada ee Laascaano Stadium oo haatan ay ku calaamadeeyaan xidig u dhashay deegaanka oo isku magacaabay haddaba cid alaalay cid aragta 70 jirkaas guusha jecel waxa laga codsanayaa in isaga iyo tulkiisa la ciyaarsiyo kulan nabadeed haddii ay ka dhagaadeegaan waxaad u sheegi kartaan in Laascaano bisha dambe ay marti gelin doonto fiinalaha kulanka Puntland iyo Somaliland iyaga argal aan heshin doonee sidoo kalena waxa la baafinayaa laacibka reer Italy qaqaan oo haatan line up ka kaam ku yaala Germany markii cid ugu war dambeysana wuxuu galbihi soo duubay 9 fiideo xilli kuwiisii duhurnimo aan wali la daawan haddaba cid allaale cid aragtay xidigaasi gabadhii qadasiisa u duceeyay kooxdii ay matasho waxa laga codsanayaa inaad isaga dhigtaan jiilka saddexaad si muuqiisa aan u helno ama waxaad farta ka saari kartaan Maryan Soobe iyadan af garan karnaaye sidoo kalena waxa la baafinayaa xidigii hore oo Afrika Xasan Muuse Sabriye markii cid ugu war dambeysana wuxuu joogay Zurich Switzerland isagoona cidii garoon ka soo degtaa u heystay wafdi heer caalami ah sawirna la soo galayay haddaba cid alaalay cidii aragtay xidigaas faraha Italy laga waayay nasiibka badan waxa laga codsanayaa in laacibkan uusan isku mashquulin shaqo raadiyo ama TV maadaama garabeeshan laga aqoon Yurub haddii uu ka dhaga adeegana waxa fariintayada u marsiin doonaa wafdi u socda Swiss-ka isaga airport-ka qasabka gudoomi doonee sayana ku soo gabagabeynayna barnaamijkani kaftanka sportiska waxaana si wada jir idinkugu daadihinayay Cabdiqaadir Boos iyo waliba anigoo Luul Shaalu waxaadna ka daalacanaysaan barta Facebook ee Cabdiqaadir Boos halku dhiga barnaamijkeenu waa lagu xasuustayaa ka horeysa intan dib dambe barnaamij ceenkan oo kala ka kulmayno waanigii Boos oo idin leh gaashaankiina noolama karo gabagabada heesta barnaamijkuna waa أكتر شلي هذا نوبح دقي ما أنت نورش وأنا صيعتك هالأسجى محمد أحمد بكال عري ولي وضاقي وذا شركة مال عمر إيو عبد الله علي عبد ستلان from Sweden داوش عن أكتر هذا شلي وبح دقي ما أنت نورش وأنا أسي ما حد وقولي هالكاس وأرديسي عيلي بركيني تبعها احترامك مركو مستاقي ما حاد وقونتي ما حاد رقيقا هدير وقويدي أظون فرير مركاقات كيسو الباك وناقو بحدينك عودا